bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka wararka soomaalida qodobada ugu waaweyn in maanta aan idin hayna daawadayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka arrimaha shidaalka soomaaliya looga hadlaya ee ka furmay magaalada london ee cariga dalka ingiriiska banaanbaxyo gilgile oo looga soo horjeeda shirkaasi oo ka dhacay afaafka hore ee hotelka shirkaasi uu ka dhacayo iyo weliba ajaaniibta ku sugan magaalada boosaaso oo bilaabay inay halkaasi isaga baxaan kadib markii ay ka baqeen in dilal ay kala kulmaan kooxda al-shabaab ee ka horjeeda dowladda soomaaliya. haddaba aynu ku bilownay wararkaan ka helayno magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxay sheegayaan in magaaladaasi ay isaga baxayaan ajaaniibta ku sugan kadib markii ay soo food saartay xaalad amni daro. qaar ka mid a dadka u dhashay imaaraadka carabta ee ku sugan magaalada boosaaso kana shaqeeya dekeda boosaaso ayaa bilaabay inay halkaas isaga cararaan kadib markii ay baqdin ku abuurtay falkii 4 bishan nin hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ku dilay madaxii howlaha mashaariicda shirkada BOA ee magaalada boosaaso ee lagu magacaabi jiray Baawol Formosa. saaxiibada Baawol Formosa kala shaqeynaya shirkada BOA ee magaalada boosaaso iyo ajaanib kale oo u dhalatay dalalka kale ayaa bilaabay inay si tartiib uga baxaan magaalada boosaaso, waxaana wararka qaar ay sheegayaan inay hanjabaad ka soo gaartay ururka al-shabaab. maamulka Puntland ayaa bilaabay howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaaladaasi oo maalmihii u dambeeyay kusoo badanayeen falalka dilalka qorsheysan oo ay fulinayeen kooxo hubeysan. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in howlgalku uu amray madaxweynaha cusub ee Puntland MW Deni kadib markii dilal qorsheysan ay ka dhaceen magaalada boosaaso. madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa la sheegaya inuu ku wajahan yahay magaaladaasi si uu usoo indhiindheeyo xaaladda amni ee ka jirta magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari. dhanka kalena maanta waxaa magaalada London ee cariga dalka Ingiriiska ka furmay shirka arrimaha shidaalka Soomaaliya looga hadlayo, kaasi oo ay soo qaban qaabisay shirkadda Spectrum, waxaana ka qayb galaya mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. shirka ayaa siyaabooyin kala duwan looga hadlay, waxaana siyaasiyiinta iyo xubnaha mucaaradka oo dowladda ay sheegeen in khiyaano uu ku yahay shirkaasi kheyraadka dalkeena, waxaana dhanka kale muxaafidka dowladda ay qabaan in dan weyn Soomaaliya ay ugu jirto shirkaasi. qaar ka mid ah xisbiyada ka jira dalka sida wadajir UPD iyo xisbiga himilo oo uu hogaamiye Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku baaqay in la joojiyo shirkaasi inta shuruucda iyo xeerka kheyraadka dalka la dhameystirayo. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay shirka muranka badan dhaliye ee looga hadlaya arrimaha shidaalka Soomaaliya. madaxweyne farmaajo ayaa weerar afka ku qaaday siyaasiyiin oo ku tilmaamay ilaa 2000 soo waday in dalka dib u dhac weyn ay geliyaan. tusaale waxa uu soo qaatay arrinta hawada Soomaaliya markii lala soo wareegay iyo sida ay saameynta u lahayd. madaxweyne farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in been abuur ay tahay wararka sheegaya in dana gaar ah loo adeegsanayo xaraashka shidaalka Soomaaliya. banaanbax looga soo horjeeda shirkaas ayaa ka dhacaya afafka hore ee hotelka uu shirka ka dhacayo, waxaana ay dalbanayaan dadka banaanbaxa dhigaya in la joojiyo shirkaasi oo khiyaano ku ah qaranimada Soomaaliya sida ay hadalka u dhigayaan. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen youtube-ka wararka Soomaalida waa naga inta. haddaba subscribe dheh, share garey, comment-na ka bixi, waadna mahadsantihiin.